سلام الله عليكم أصحاب الجنال كي كوحيرا وإذن حسي مركلة يكسو دبادة برنامج عصب برنامج كان وحا الله دحا أم وحا نوغو مقعدري محا إيقا قالي إتوبيدو قبنيسو أما محا إيقا قديشا إتوبيدو قبنيسو موقال كان وحا نوحل دي دونا إتوبيا دقيقة يركدب وحان رباه إنان كرباشو دولة إثيوبيا وهجامينيو أبي أحمد سو نقصو وناكسن Welcome back guys. Isku soo laabanay. Maanta waxaan rabaa saan hore in kugu sheego inaan karbaash halkan uga diro dowladda Itoobiya. Anagana waan ku faraxsanahay waxa meesha ka dhacayo. Because of waxa meesha ka dhacayo waa wax ay horey u sameysteen ama u garabsadeen 2008kii waa la xasuustaa waxay ka sameeyeen Soomaaliya by no means wilibo by no means wax sameeyeen waana xasuustaa wilibo 2008kii kaaraha ay u wadeen Soomaaliya xitaa laamigii xataa ilaa iyo intaasoo bilood laamigii yani wadadii ay mareen way muuqataan ku dhawaa ka muuqatay awoodii sheeganayeen waagaasi way ka muuqatay iyo hadda sida ay tahay hadda ayaga isku jibiyay hore Soomaali waxay tiri laba isjecel wax iskugu dar ayaga isnici dooneen laba isjecel wax iskugu dar ayaga isnici dooneen hadda Itoobiya ayada isku soo jeesatay qacda iska gelinayso hal amxaar dhintay I like it يقول فيلم مكلا جعلي ولا تكراي ولا أمحار ولا أورمو it's the same وحان كلا جعل هاي مجرتو أمحار is أمحار إثيوبيا is إثيوبيا wherever نيا صوماليا هاي صوماليا أنا هاي وحكا لمي إشي إثيوبيا ima aqoonsanayso inaan Ethiopian ahay weligeed baasaboorka rabta hayso because of waxaa jirto qofku uusan marnaba ka dhaadhicin hadduu weynaado xataa ma ka dhaadhacayo haddii lagu anqariyay ama lagu barbaariyay in qofkani uu Ethiopian ahayn never ever ma dhacayso Itoobiya waxay aaminsan tahay Tigrayga in Ethiopian yihiin way og yihiin Amxaarada in Ethiopian yihiin way og yihiin ormada xitaa wal aaminsan in Ethiopian tahay laakiin Soomaalida kilka degto dhan lama aaminsano su'aal kale ku muujin waxa ku leeyihiin originalka maxaa waa Soomaaliya waxa ka timid Soomaaliya waxa ka timid Muqdisho soo marka adiga ilada digaada weliga هذه ما بدل كتير ما نبدل مية دا كنت حتى أنا بدشيت ما بدل مية ما دام أن إيرين تتيجي بدل كرين والصومالي لماذا أن بدل كرين وإن أن دحا صومالي أيان أحي أنكفانا وليبو واحد إسدير ريو أو قمنانك قف بركع ولوغو هوري هذا واحترى يسو بركع إمسان بركعنا إمسا فوريو لغوردي هوي Soomaaliyeed dhimatay aba Soomaaliyeed dhintay ilmo Soomaaliyeed waxbarasho la'aan iyo macluul iyo nafaqa darro iyo dhibaato dhan haysatay
alxamdulilah maanta wadankeenu wuu soo hagaagayaa. qaxootiyaal baaba hadda mar dhow kaam qaxooti baa mar dhow la furi rabaaba oo fowraan laga sameyn rabo. I wish waxaan rajeynayaa in wadankeenu noo soo hagaago sidii berigi hore u ahaan jiray uu noqdo, oo aan soo dhoweyno oo aan martigelino qaxootiyaal fara badan. Ethiopia inaan martigelino qaxootiyeeda wax weyn ma ahan because of Somalia ayada always gob waay, because of qof Soomaali ma arki karo wax sise ama qof baahan ma arki karo, horey ayuu ka siinayaa. laakiin Ethiopian-kaas ma ahan, dadka way naga dhaqan duwan yihiin. marka waxaa leeyahay congratulation, dagaalkiina hore usoo wada. waxaa maqli jiray yani ha israaci diide ha israamsatee daa, si fiican isku raamsato. laakiin waxaan halkan talo ugu jeedinayaa Soomaali galbeed, qofka Soomaali galbeed ku noolow, hadduu muuqaalkan ku soo gaaro kolbo aniga talo ayaan ku siinayaa. laakiin inaad qaadatana adaa door u leh, inaad diidana adigaa khiyaar u leh. idhegeyso, Ethiopia waa un Ethiopia. last 27 years waxba isma bedel hadda, it's same. ninkaane markuu hadda wadanka si fiican u qabsadana wuu gumaadayaa, wax kale kuma sameynayo. hadda waa ardayna Cabdi Maxamed Cumar markii la xiraayay dhib yar ma ahan. waxa dhacay waa la soconnaa, waxa dhacay waan la soconnaa. haddana sidoo kale waaye, tani waa isku mid, waxba ma kala gedisana. Ethiopia is Ethiopia. laakiin adiga waxaa ku ron mar waliba in aad sidaad Ethiopia ugu takhallus leed aad ku fikirto, haddii aadan ka takhallusi karin hal waa inaad sameysaa, taasoo aan kugula taganayo inaad isbedelka hogaamisaa. in aad hogaamisaa, maxaan ka wadaa inaad hogaamisaa? almino haddii aadan gu'i karin Ethiopia ka mid noqo, laakiin dulli ha ku noolaanin. Ethiopia hadda waxaan maqlay waxay dagaal kula jirtaa oo isku ficnaan Masar because of dhaamkan la sameynayo oo korontada laga sameynayo. taas awgeed Ethiopia brother i aamin, Ethiopia hadday haysato xataa warshada caalamka korontada ugu wanaagsan kama dhargeysid. Ethiopia weligeed forever wax ay hayso oo laga dharkin ma jirto. korontada hadda ay hayso waa free, laakiin maxay u talaahay 3 maalin 4 maalin iska maqnaanayaan, nima baad isweydiinaysa ma jirto. biyaha sidoo kale waa la mid, markay rabtay soo deynaysaa, markay rabtana way xiraysaa. marka Ethiopia si kasta u noqoto xataa dowladda ugu wanaagsan caalamka, waxa ay hayso lagama yaabo inaad ku baahi baxdo oo aad ka dhigto, ma laga yaabo. heer hadda Ethiopia waxaa ka jirto qofku 5 simikaar ka badan ma qaadan karo. brother, you see, adoo intaadan aakhire gaarin baa lagu xisaabiyey. intaan aakhire gaarin yaa lagu xisaabiyey brother. marka Ethiopia waxba adiga Soomaaliga ahi waxba kuma daahayso. hadda meel dheer aadin dowladda Soomaali galbeed, shaqooyinka ugu muhiimsani waxa hayo Amxaarada iyo Tigrayga, waxaas unbaa haya. qof Soomaali ma laga yaabo bangiga Ethio Telecom, ma laga yaabo qof Soomaali inuu manager ka noqdo, xaraam ka tahay. markaad tagto bangiyada Ethio Telecom, markaad tagto waxaad arkaysaa 1 ama 2, 1 iyo 2daasne si rabaan ma sameynayaan, waxay ka amar qaadanayaan Ethiopia. heer waxay gaadhay xataa telefonka ayada ay iibiso, telefonada in telega laga iibiyo. bal fiiri,
ganacsi meesha ka sameynaysa feri tayleega ayaa traffic laga dhex iibinayaa kuwa kale uu ka raqiisan yahay because of ayadaa soo iibisay ayadaa haddana maxay qaadayso waad ogeen hadda Ethiopia waxay leedahay kuwa dhahayo jibri oo contraband ka hortaga maxaa contraband alaabta aad soo iibsatay waa contraband waa la dhacayaa hala dhacay hadda iyada qaanis maxaa ka beelaha ma qaadanayso banaanka kasta lagu iibinayaa weliba inta kasoo siisay ka yar baa laga siinayaa ka yar ayaa laga siinayaa hadda kasoo bixisay 10,000 bir waxaa leeyahay xaraash xoolo jaban ma garad 500 bir aa laga siinayaa ma garad qofkii ku nool unbaa fahmi kara ama Ethiopia ku noolaa unbaa fahmi karo Ethiopia weligeed saan bay ahaanaysaa isma bedelayso saan unbay ahaanaysaa weligeed iyo weligeed laakiin annaga Soomaali waa inaan isbedelnaa because of gumeysi ma lagu noolaan karo gumeysi laguma noolaan karo haddaan annaga aqbalna maanta in labada qof qoladii soo raaya haddana ayna sii xukunto dhibkeeda leedahay labada qolo isdagaalayo midna nooma roono kuwa hadda talada haya xitaa ma roono kuwii kasii horeyna ma roono oo ogeydeen last 10 years waxa ka dhacay gobolka aad buu u kharibnaa heer waxaa la gaar la isku eedeeyay ubbo hebel waa ubbo bas la isku eedeeyay waa lagu xiraa qofka heer waxaa la gaar shabaab la isku eedeeyay heer waxaa la soo maray ubbo shabaab la isku eedeeyay heer waxaa la soo gaaray qofkani telefoon hadduu ku hadlo la dhaho yaa la hadlaysaa hataa 10 daqiiqo ka baan hasho waxaa leeyahay ninkan waxbaa ninkan jiro ninkan waxbuu maleegayaa ma garad haddana waxaa jirta Ethiopia waxaa caan ka wax la dhahayo gamagamo ninkii yaqaana gamagamo walas gamgameena shir baa jiro qasab shir baa jiro waraa gamagamada mow waa la maxkamadeena waa la imaanayaa cidii taqaan kulba taqaanaa dadka qaar waa la maxkamadeynaya si fiican baa isku dhufanaa maantaas haddana markii lagu dhufto waa inaad dhahdaa waan ahay haddaad dhihi weyso waan ahay bas waay waa ahaatay oo lula kacayaa markaas okay ciidamada military meesha joogo markii way kula boodayaan dhab wala isku gaajibinayaa dee marka adiga gamagama diyaar muuta sheeg forever waa lagu gamgameynaa kii kugu dhacsanaa xitaa oo aad maan istirateen maantaas wuxuu leeyahay haa hebel ana aqaan hebel waa sel hebel waa ubbo hebel waa heego hebel waa TPL waa lagu qiimeynayaa qiimeyn ayaa jirto qiimeyntaasi waa inaad adoo ahayn hadii laga sheegay xataa adoo hadii laga sheegay xataa waan dhahdahayo waan ahay waan iska badaan dhahdo waa ma dhihi kartid okay marka gamgamada way soconaysaa laakiin gamgama annaga dooni mayno gamgamada Soomaaliya Maxamed Soomaali galbeed intaas ku waaninayaa gamgamada annaga waa aqbalnay laakiin ilmaha annaga ay aqbalin koronto laan annaga waa aqbalnay laakiin ilmaha annaga ay aqbalin korontada la dhisaan annaga waxba naga ma geen wali Ethiopia koronto yani free qof ma siinayso ilaa hadda magaalooyinka qaar bay gaarin koronto la sheegay anteenada xataa waa aragteen waa iska busy waxay ardayda ka sameysanaysaa marka idinka sidii idin roon idinka yaqaano waxaana idin roon waxay tahay inaad dandiina ka fikirtaan Ethiopia isma bedelis weligeed waana idin salaamayaa waana ku mahadsantihiin inaad muuqaalkan daawataan waxaana jeclaan lahaa inaad like iyo share asiisaan haddaad page-kan subscribe saartay waad ku mahadsan tahay haddaad saarinne waxaan kaa codsan lahaa inaad hadda saarto welcome guys to muqaaxideeda waana idin salaamayaa salaamullaahi calaykum